halkan waa Bahda TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo shaaciyay hal arrin oo lagaga adkaan karo dowladda Kenya oo xaalku ku xun yahay iyo dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa oo meel xasaasi ah maraysa qaramada midoobay oo fariin degdeg ah ka soo saartay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka awgeed gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo amarro culus ku soo rogay shacabka ku nool magaalada Muqdisho wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in dadka ku nool gobolka Banaadir loo qaybin doono 1 milyan oo face mask ah ciidamada ammaanka iyo dowlad goboleedka Puntland howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolka Bari qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan isku soo noqod habboon daawadayaal kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fadlan haddii markasta ay ku soo gaaraan wararka Bahda TV subscribe saaro oo gambaleelka furo aynu ku bilownay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa shaaciyay hal arrin oo lagaga adkaan karo dowladda Kenya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo xeer ilaaliyaha qaranka Suleymaan Maxamed oo shir jiraa'id iyagu ku qabtay garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen dacwadda badda ee dowladda Soomaaliya kala dhaxaysa dowladda Kenya ee iyadu taalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ taasoo la dhageysan doono 15 bishan Maarso Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa waxa uu ka codsaday ummadda Soomaaliyeed warbaahinta ku hadasha afka Soomaalida iyo warfidiyeenada Soomaaliyeed in doorkooda ay ka qaataan si loo difaaco badda Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in uu ambabaxayaan magaalada Hague ee dalka Netherlands halkaas oo la filayo in 15 bishan uu ka furmo kiiska badda ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamuud oo isagu dhankiisa hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya waxba ka hagran dhameystirka tasiilaadka iyo agabka lagama maarmaanka u ah dacwadda badda wafdiga uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalku hogaaminayo ay ku sii jeeda magaalada Hague ayaana waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo xeer ilaaliyihii hore ee qaranka Axmed Cali Daahir oo ka mid ah madaxdii ka soo shaqeysay furitaanka galdacwadeedka badda ee iyadu taalla maxkamadda cadaaladda adduunka waxaana sidoo kale ka mid ah Yuusuf Garaad Cumar oo ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan badda cas iyo gacanka Carabta sidaas waxaa sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ay hareerihiisa taagan yihiin xeer ilaaliyaha qaranka Suleymaan Maxamed iyo xeer ilaaliyihii isaga ka horreeyay Axmed Cali Daahir waxaana sidoo kale weheliyay Yuusuf Garaad Cumar maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaana hadda sheegtay inay tahay fursaddii ugu dambeysay ee dhageysiga dacwadda ee u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ku beegan bishan 15 iyadoo maxkamaddu dhowr jeer oo hore ay dib u dhigtay dhageysiga badda ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa waxaana Kenya marar badan ay gudbisay codsi ku aadan in kiiska badda dib loo dhigo dowladda federaalka Soomaaliya ayaana xiriir wanaagsan waxa uusan kala dhaxayn dowladda Kenya iyadoo dowladdu ay hore u jirtay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay dowladda Kenya ayaa waxaa la sheegay in xaalku ku xun yahay iyadoo 15 bishan loo fadhiisan doono kiiska badda ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya xilli loo madalsan yahay in si rasmi ah loo guda galo dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya ay ka geysay Kenya ayaa hadda waxaa soo baxay xogo hordhac ah oo sheegaya guul darro ku soo wajahan dowladda Kenya sida ila xogogaal ah ay sheegayaan Kenya ayaa muddo badan dib u dhigeysay imaanshaheeda maxkamadda iyadoo lagu soo waramayo in ujeed ay kala heer waxay isku dayeysay in Soomaaliya waqtiga ay ku dheereyso si maamulka hadda jira markii la heshiin waayeen u raadiyaan maamul dhankooda u janjeera oo danahooda fuliya hase ahaatee waxaa madaxda Kenyaanka ah iyagu la sheegayaa in rajo wanaagsan aysan ka lahayn dacwadda badda ee kala dhaxaysa dowladda Soomaaliya maadaama aysan haysan wax documents ah oo ay maxkamaddu la hortagaan sidoo kale waxyaabaha fashilka ugu weyn ku keenay dowladda Kenya ayaa waxaa ka mid ah in xadka dhanka bariga ay ku aadiyaan badda iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay arrintaas ka hortageen Soomaaliya ayaa guul weyn la filayaa inay ka keento dacwaddan iyadoo wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo anbabaxeen dalka Holland qaramada midoobay ayaa fariin degdeg ah ka soo saartay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka awgeed bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa ay bogaadiyeen in haweenka Soomaaliyeed kaalintooda ay ka qaataan nabadda iyo horumarka dalka waxayna madaxda Soomaaliyeed ugu baaqeen inay qaadaan tallaabooyin cad si loo xaqiijiyo sinaanta jinsiga iyo ka qaybgalka buuxa ee haweenku ay ku yeeshaan dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ee door aan caadi ahayn ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta nabadda iyo horumarka dalka wakiilka gaarka ah ee xakayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaana waxa uu sheegay in wada hadallo badan uu la yeeshay shacabka Soomaaliyeed ay intooda badan u sheegeen in haweenku ay yihiin laf-dhabarta bulshada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in la joogo waqtigii arrintaas la aqoonsan lahaa laguna bedeli lahaa waxqabadka iyo fursadda
la taaban karo ee haweenka Soomaaliyeed ay uga qayb noqon karaan go'aan qaadashada siyaasadeed iyo inay sare u qaadaan awoodaha hogaamineed. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaana waxa uu bogaadiyey adkeysiga haweenka Soomaaliyeed. Hadda ayuuna waxa uu sheegay inuu la xanuunsanayo in Soomaaliya iyo meelo ka mid ah dunida oo cudurka si xad dhaaf ah COVID-19 uu saameyn xoogan ugu yeeshay, isagoo soo ritay haween iyo gabdho badan oo iyagu wajahaya dhaqaale la'aan. Ka hor doorashooyinka ku soo fooda leh Soomaaliya, qaramada midoobay ayaana waxa ay bogaadinaysaa dhammaan saamileyda siyaasadeed ee dalka in ay ixtiraamaan ballanqaadkii la sameeyey ee ahaa hirgelinta qoondada haweenka ee 30% ee lagu heshiiyey marka la dooranayo wakiilada aqalka sare iyo baarlamaanka 11aad. Maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ayaana waxaa laga xusay adduunka oo dhan laga soo bilaabo 1975 si loogu dabaaldego guulaha bulshada ay gaareen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa uu ku soo rogay amarro culus. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo shir jiraayid qabtay ayaa waxa uu faray bulshada caasimada ku dhaqan in ay u nuglaadaan fariimaha caafimaad iyo wacyigelinta uu wado maamulka gobolka Banaadir taas oo laga hortagayo faafidda caabuqa COVID-19. Duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa sidoo kale tilmaamay in ay ciqaab la kulmi doonto ciddii fulin weysa awaamirta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya taas oo la xiriirta COVID-19. xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ayaana hadda waxaa ka socda dadaallo bulshada loogu wacyigelinayo khatarta looguna sheegayo qaabka ugu habboon ee laga hortagi karo xanuunka. Sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaana bulshada aan heli karin agabyada laga hortago COVID-19 u qaybiyey, taasi oo qayb weyn ka qaadanaysa la dagaalanka faafitaanka caabuqa COVID-19 oo Soomaaliya ugu sii baahaya. Wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in gobolka Banaadir dadka ku dhaqan loo qaybin doono 1 milyan oo face mask ah. Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta hadal ka jeedisay goob ay ku sugnaayeen wasiirro badan oo ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta, ayaa sheegtay in xanuunkan markii ugu horeysay ee Soomaaliya uu soo gaaro waxyaabaha xakameeyay ay ka mid ahayd in 75% Soomaalidu ay yihiin dhalinyaro, balse markan uu yahay mid aan laga badbaadayn. Wasiir Khadiija ayaa waxa ay shaacisay in face mask la gaarsiin doono deegaanada maamul goboleedyada dalka, haddana ay gacanta ku hayso wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya. Waxayna Khadiija Maxamed Diiriye intaas ay raacisay in gobolka Banaadir laga qaybin doono 1 milyan oo face mask ah ama waji xirasho ah, maadaama magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ay tahay meelaha ugu badan ee khatarta uu ku hayo xanuunka COVID-19 oo Soomaaliya ugu soo labakacleeyay. Soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa xaalad adag oo coronavirus la xiriirta, waxaana si maalinle ah wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya u diiwaan gelisaa kiisas ka badan 100 oo xanuunkan la xiriirta, waxaana Muqdisho ay tahay meesha ugu badan ee uu saameyntu ku yeeshay xanuunkan, iyadoo shacabka Soomaaliyeed aysan ka muujin wax feejignaan dheeraad ah. Ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay fuliyeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Ciidan ka tirsan ciidamada BNPF-ta ee maamulka Puntland oo ay weliyaan kuwa BSF-ta ayaa waxa saacadihii la soo dhaafay ay howlgallo kala duwan ka fuliyeen meelo badan oo ku yaala gobolka Bari, gaar ahaan deegaano ku yaala dhulka buuraleyda ah. Ciidamada oo ka duulaya amar dhawaan ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, kaas oo ahaa ciidamadu in si degdeg ah ay u fuliyaan howlgallo ka dhan ah oo iyagu jimcihii la soo dhaafay weerar ku qaaday xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, isla markaana halkaasi ka sii daayay dad gaaraya 400 oo ruux oo maxaabiis ah, ayay ciidamadu waxay fuliyeen howlgal gaar ah. Qoraal ka soo baxay ciidamada BSF-ta ee maamulka Puntland ayaana lagu shaacin in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, waxaana ciidamadu ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada, iyadoo ciidamadu ay lugta mariyeen buuraha iyo togaga iyo Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen. Ciidamada ammaanka ee maamulkaasi ayaana qoraalkooda sidoo kale waxa ay shacabka Puntland kaga dalbadeen inay ka qayb noqdaan sugidda amniga iyo xasiloonida deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo, iyagoo soo bandhigay lambar gaar ah oo dadku ay kala soo xiriiri karaan. Ciidamada maamulka Puntland ayaa maalmihii la soo dhaafay sare u qaaday howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo kooxda Daacish oo iyagu ku sugan isla markaana ka dagaalama dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari, waxaana ciidamadu dhowaan gacanta ay ku soo dhigeen rag ay sheegeen inay ka qayb ahaayeen weerarkii xoogganaa ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen xabsiga magaalada Boosaaso. Waad ku mahadsantihiin daawashada warka. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato, subscribe noo saar oo like noo saar, asxaabtaadana u share gareey. Mahadsanidin.